اوكي بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Saad Ahmed Abdulwali anigoo ah senior lecturer of public health ku waa barnaamij ardaygu baranayo sida xanuunada looga hortago sida caafimaadka kor loogu qaado iyo sida kor loogu qaado nolosha bini'aadanka oo markii xanuunkii laga hortago qofkii waxa kordhaya caafimaadkiisa waxa yaraanay halistii qofku xanuunada qaar ay ku keeneen ayaa yaraanaya public health ardayga bartaa wuxuu suurto gelinayaa inuu qofku u dhaqmo inuu noqdo qof researcher oo wax darsi kara wax baari kara dhibaatooyinka adduunka ka taagan baran kara xanuunada badan ee adduunka ka dhacay cid daraasada ee wax ka qorta waa public health marka qofka public health ka bartaa wuxuu baranayaa xanuunadu xilliyeed dhacaan xanuunada maxaa sababa meelaha xanuunadu ku badan yihiin waliba qaybtaasi waxa la epidemiology-ga focus ka saarta marka barashada public health waxay ka dhigaysaa qofkii inuu barto caafimaadkii wuxuu baranayaa si guud qofku wuxuu baranayaa dhibaatooyinka la xiriira nafaqada dhibaatooyinka la xiriira nadaafad xumada dhibaatooyinka la xiriira xanuunada loo yaqaan chronic disease-ka sidii wax looga qaban lahaa qof wuxuu baranayaa xanuunada ka yimaada environmentalka ardaygu wuxuu baranayaa xanuunada la xiriira lifestyle-ka ayuu ardaygu baranayaa sidii loo manage gareyn lahaa marka laga hadlayo public health-ku waxa la yiraahdaa waa field focus ka saara prevention of disease promoting of health and prolonging of life marka dadku waxay isku qaldaan public health-ka iyo hygiene and sanitation uu kala duwan yahay marka laga hadlayo public health-ka waxa loo qaybiyaa laba qaybood waxa ama public health iyo public health officer ardayga public health officer-ku wuxuu u dhaqmayaa waa public health informationski public health ka waa preventionki waxa uu raaca qofku wuxuu sameyn karaa curative waxba daweyn kara qofka public health officer-ka marka laga hadlayo public health-ka ardaygu haduu yahay more of wax weey waa prevention ma taabanayo patient marka qofku yahay pure public health ama public health caadi ma ku yahay laakiin marka laga public health officer wadamada qaar waxa la health officer wadamada qaar waxa la clinical officer dhamaantood wax weey waa public health curative sameynaya wax daweynaya ayaa la oranayaa marka baahi badan baynu qabnaa wadamo fara badan aynu ka midnahay waxa jira dhaqaatiirtu ma tiri karaan meelaha miyada fog hooyooyinkii dhimasho badan ayaa jirta hooyo kastoo umulasa dhimasho badan bay soo food saarayaan si dhimashada loo yareeyo in la train gareeyo public health officers waxay keenaysaa in goobaha fog ay adagtay in la gaaro ay ka shaqeyn karaan public health officers halka public health kana caadiga ay ka shaqeyn karaan wasaaradda caafimaadka qaybta talaalada MCH-da ay meelaha ka shaqeyn karaan barnaamijka public health yaa ku soo beeri kara arday kasta oo ku fiican basic science ku soo beeri kara sida ardayga ku fiican biology-ga chemistry-ga iyo sidoo kale physics-ka waa muhiim basic science-kaasi iyo ardayga waa luqadiisu ay fiicnaataa markuu doonayo inuu public health barto because wuxuu akhriyaa buugaag internationalisa hadhow public health-ka ardayga baranaya research ku sameynaya marka qofku research sameeyo waxa la doonayaa in luqadiisna ka dhisnaado marka waxyaabaha muhiim ah qofku inuu barto barnaamijkan ujeedada aanu ka leenahay public health wuxuu yahay ardaydii in lagu xoojiyo ay bartaan in la sameyn karo wadanku yeesho prevention policy because wadamada dunida saddexaad ee ka mid ah dhaqaalooga hooseeyo awood badan u heli karno in lacag badan ku bixino dawo in qalbo qofka la daweeyo laakiin waa awood badankeega ku bixinaa maxay prevention waxa la prevention is better than cure marka hadaynu xanuun fara badan sameeyno prevention waxay noo dhigmaya lacag fara badan oo wadanku waxyaabo badan uu ku qaban lahaa marka goobaha caafimaadku waa inay u shaqeeyaan prevention-ka iyo curative-ka daweyntii iyo kahortagii labada barnaamij waa inay yeeshaan marka ardayda barta public health-ku ardaygu wuxuu noqon doonaa hadduu public health barto prevention uu sameyn karaa hadduu barto public health officer-na wuxuu noqon karaa prevention uu sameyn karaa curative uu sameyn karaa chance-da shaqo ardayga barta public health-ku chance shaqo heli karo waxa kamid ah wuxuu la shaqeyn karaa hay'adaha caalamiga wasaaradaha caafimaadka la shaqeyn karaa goobaha caafimaadka la shaqeyn karaa jaamacado ka shaqeyn karaa u dhigi karaa wuxuu noqon karaa muxuu ahaa researcher wuxuu ka shaqeyn karaa muxuu ahaa NGO uu samaysan karaa u gaar leeyahay oo wax lagu daabaco fariimaha caafimaadka lagu gudbiyo ardayga barta public health officers wuxuu ka shaqeyn karaa health centerada wuxuu ka shaqeyn karaa muxuu district hospitalka ayuu ka shaqeyn karaa chance oo banaa waxa kamid ah ardaydaas hadhow toole waxay sameyn karaan barnaamijyo kale ay upgrade ku sameyn karaan ardayda barata marka public health waa wax weeyaan profession cusub
oo Chinese-kiisu banaan yahay meelo fara badan markii la waayay public health waxa dhacday nurse-ka shaqadii public health ka qabtaan meelo fara badan marka ardayda secondary ka soo baxay waxaan oolanahay haddaad gashaan public health-ka Chinese fara badan oo shaqo idin banaan because qofku hadhow toole wuxuu heli karaa ama wuxuu noqon karaa qof ka shaqeynaya jaamacadihii wasaaradda caafimaadka marka la joogo cidda u badan ay tahay in ka shaqeysaa public health because qofka public health wuxuu focuskiisu waxa inuu community u adeego halka qofka clinical ama nurse noqdo ama noqdo medicine ama laboratory individual marka wasaaradda caafimaadka cidda ka shaqeynaysa adduunka wadamada ilaa wasiirada marka la magacaabo ilaa wasiirka caafimaadka kale wadamada badankoodu focus ku xisaaran qof public health loo dhiiba marka ardayga barta public health ku challenge fara badan hay'adaha badankoodu ka shaqeeya prevention-ka hay'adaha ka shaqeeya badan muxuu ahaa donation-ka dhamaantood waxay baahan qof public health hay'adaha ka shaqeeya gargaarka caalamiga waxay baahan qof public health marka fursado badan oo shaqo iyo qofku heli kara sidoo kale ardayga public health ku barta specialty uu sameyn kara wuxuu sameyn karaa master of public health marka waa broad master of public health in RH oo ah baran doona tarankii bilaadanka waxyaaba kordhinayay wuxuu baran karaa family planning-kii noocyadii kala gorintii ciyaalka loo kala korinayay saameynta ay keenayaan qofku wuxuu baranayaa nutrition-kii uu baran karaa master of public health nutrition wuxuu kala baran karaa qofku master of public health in population and development master of public health in biostatistics ayuu baran karaa oo qofkaas wuxuu noqon karaa tole maxay researcher wuxuu baran karaa dhacdo si loo analyse karinay qofka public health-ka bartaadhu wuxuu specialty heli karaa public health specialist uu sameyn karaa master public general baa jirta inuu qofku uu sameyn karaa wadamada qaar waxa jira ku dadka barta public health officersku waxay sameeyaan upgrading program sida emergency surgery ay sameeyaan kuwa kuwa clinical-ka ku dhex jira public health qaar baa clinical level public health officerskaasi hadhow qofkaas wuxuu noqon karaa public health officers buu noqonaya hadhow surgery uu diyaari karaa surgery uu diyaariyo waxa la yiraahdaa emergency surgery wadamo fara badan baa sida Ethiopia qofku 3 sano diyaariyo waxa la oranayaa waxa loogu yeeriyaa medical surgeon ayaa loogu yeeriyaa dan wuxuu sameyn karaa emergency surgery oo dhan sameyn karaa C-section ku sameyn karaa wuxuu ka shaqeyn karaa koox kale muxuu minor surgery ka wuxuu sameyn karaa acute abdomen-ka wax ka qaban karaa qofka bartamka officerskaasi hadhow noqda marka barnaamijka qiimaha uu leeyahay wax kamid ah public health kuwa barnaamij kooban qofku 3 sano iyo xoogaaba ku gaaraya minadu doonay inuu gaaro hadhow 3 sano marka waxbarashada ku dhamaato ama 8 semester oo 4 sano jaamacadda bas uu isticmaasho waqti kooban qofku challenge shaqo ku abuuri kara marka barnaamijka qiimaha uu leeyahay wax kamid ah ardayga barta wuxuu faa'iideeyaa wuxuu noqon karaa qof community-ga u adeega bulshada u adeega haddaynu soo saarno dad fara badan oo public health barta caafimaadka wadanku kor buu kacaya wadamo fara badan ay ka mid yihiin Ingiriiska Mareykanka wadanka cidda caafimaadka gacanta ku haysa waa public health marka Soomaaliland waxay iman doontaa mar public health wadanka gacanta ku qabtaan marka ardayga miinada barta challenge-kaasi hadhow tole ayuu heli doonaa markuu barta ardayga barta public health intaas ku soo koobay